dalka Koonfur Afrika ayaa maanta markii ugu horeysay laga daawan doonaa film cusub oo laga sameeyay madaxweynihii hore ee dalka Koonfur Afrika Nelson Mandela kaasoo loogu magac daray Long Walk to Freedom oo macnaheedu yahay socdaalkii dheera ee loo soo maray xurriyadda dalkani. Filimka ayaa waxaa lagu jiray magaalooyinka Toronto ee dalka Canada iyo magaalo xeebeedka dalkani Koonfur Afrika ee magaalada Cape Town waxaana si weyn ugu dhex muuqda jilaaga filimka sameeyay Idris Elba oo u dhashay dalka Britain. jilaaga reer Britain Idris Elba ayaa soo saaridda filimka loogu magac daray Long Walk to Freedom ku qaadatay inuu jilo muddo 25 sano ah. Filimkan laga metelay Nelson Mandela ayaa waxaa fikradiisa lahaa Anansi oo isagoo ah muwaadin u dhashay dalkani Koonfur Afrika. Filimka ayaa waxa uu ka hadlayaa nolosha Nelson Mandela laga soo bilaabo xilligii uu jiray 9 sano iyo waagii uu ku xirnaa xabsiga weyn ee Roberto Island waxaana filimkan ku baxay adduun lacageed oo gaaraya $35 milyan oo dollarka lacagta Mareykanka ah. Filimka ayaa ku xusan in Nelson Mandela uu si hoose u sameyn jiray olole lagu doonayay in dalka lagaga saaro midabta koorka. kumanaan kun oo Koonfur Afrikaan ayaa ka qayb qaatay jilidda filimkani waxaana jilaaga filimkan Idris Elba uu metelay Nelson Mandela oo yar waxaana filimkan si aad u soo jiitay dadka reer Koonfur Afrika. sidoo kale soo bixidda filimkan ayaa ku soo beegmaya xilli Nelson Mandela uu la xanuunsanayo xanuun dhanka sababada ah isagoona dhawaanta laga soo saaray isbitaal ku yaala magaalada Pretoria ee caasimadda dalkani Koonfur Afrika. Maxamed Xasan Ibrahim Matka TV-ga caalamiga ee Somali Channel Koonfur Afrika.